waxa lagu xukumay dil toogasho sababtuna waxay ahayd inay baratay cilmiga caafimaadka iyadoo aan markaasi loo ogolayn haweenku inay bartaan cilmiga caafimaadka ama dhakhtarnimada aan idin wadaago sheekada haweeneydii u horeysay ee baratay cilmiga caafimaadka ama noqota dhakhtarad waa haweeneydii u horeysay ee dhakhtarnimo soo barata xadaaradii hore ee qadiimka ahayd lama ogolayn waa xadaaradii Greek inay bartaan haweenku cilmiga caafimaadka waxaanay ahayd khalad ama xaraan iyadoo oo markaasina dadka laga ilaalin jiray ama aan looba ogolayn inay haweenku tagaan dugsiyada ama goobaha iyo xarumaha lagu baranayo caafimaadka waxaa jirtay hadaba haweeney lagu magacaabi jiray Ignatius taas oo iyadu jabisay qodobkaasi waxa ay dhalatay 300 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise waxa ay go'aan ku gaadhay inay iyadu barato cilmiga caafimaadka loomana ogolayn oo sidaynu sheegnay sharci darro ayay ahayd haddaba si ay u gasho ama ay isu xaadiriso dugsiga ama jaamacadda lagu baranayo caafimaadka waxa ay samaysay inay xirato dharka ragga isla markaasina timaha ay iska xiirtay waxay samaysay dadaal badan si ay u yeelato muuqaalka ragga ugu dambeynna waxay ka xaadirtay xaruntii caafimaadka ama jaamacaddii Alexandria ee dalkaasi iyadoo oo markaasi wiil loo malaynayo ayaa la qoray oo loo ogolaaday waxa ay baratay caafimaadkii sanad kadibna waxa ay ku soo baxday inay tahay dhakhtarad ama dhakhtaradii u horeysay ee dunida ee baratay cilmiga caafimaadka maalmaha kamid ah hadaba iyadoo magaaladii ay deganeyd wadada iska maraysa ayaa waxa ay maqashay oohinta haweeney foolanaysa oo fool darani ay hayso haweeneydan oo la xarbiyaysa isla markaana dumar badan ay la joogaan kana baqanaysa inay nin u yeedhato dhakhtar ah oo doonayso inay gurigeeda iskaga umusho ayay u gashay waxaana u sheegtay inay iyadu ka foolinayso oo ay ka umulin doonto haweeneydii waxay sheegtay inay ka baqanayso oo aanay ogolaanaynin laakiin Ignatius waxay u sheegtay inay tahay iyadu haweeney iyadoo oo markaasi aanay cidina arkayn ayay dharka iska furtay oo ay tustay inay tahay haweeney waxay tiri waxaan ahay haweeney dhakhtarada sidaas ayay kaga umulisay warkii ayaa faafay oo meel walba gaaray war haweenna waliba maxaad u malaynaysaa haweenkii magaaladu dhammaan waxay isgaarsiiyeen inay soo baxday oo ay jirto haweeney baratay cilmiga caafimaadka waxa loo galay layman dhaadheer iyada oo markaas iyaduna bilowday inay daweyso cudurrada kala duwan ee haweenka markii warkii meel walba gaaray dhakhaatiirtii magaalada ee ragga ahaa ayaa ka hinaasay Ignatius iyagoo waliba u malaynaya inuu nin yahay waxaana sheegeen inuu jiro nin noocaas oo haweenkii magaalada oo dhan duufsaday oo kuyu ay ugu jiraan isla markaasina been u sheegay dumarkii oo ku yiri waxaan ahay nin sidaas ayaa lagu geeyay maxkamaddii Ignatius maxkamaddii ayay hor istaagtay dharkii inta iska furtay u cadaysay inay tahay haweeney laakiin kaba sii darane markii hore maxaad ragga dumarka u sheegtaaba lagu haystay iyo maxay ku soo jiidatay haweenka laakiin markan waxa la ogaaday inay tahay haweeney oo dalkana uu yeelo sharci ah inaanay haweeneydu u baran karin caafimaadka garsoorihii waxa uu ku xukumay dil toogasho in lagu fuliyo maadaama oo ay baratay cilmiga caafimaadka oo aan loo ogolayn haweenku inay bartaan haddaba intaan wali lagu fulin dilkii ayaa waxa kacay haweenweynihii ku dhaqnaa dalka oo dhan kuwaas oo muujiyay culays badan sidii ay u saari lahaayeen dawladda gaar ahaan waxa iyagu culayska sii xoojiyay haweenkii ay qabeen garsoorayaasha maxkamadaha oo ku jiro garsoorihii isagu xukunka furiyay iyo xukunka ku riday aan idhaahday haweeneyda Ignatius waxay haweenkii oo dhan ay u sheegeen inay dhimanayaan oo ay la dhiman doonaan oo ay raaci doonaan nololna aan iyada gadaasheed jiri doonin haddii Ignatius lagu fuliyo ugu dambeynna garsoorayaashii gaar ahaan kuwii xukunka fulinayay waxay go'aansadeen inay xukunkaasi ka qaadaan iyaga oo ka dulqaaday isla markaasina u ogolaaday Ignatius inay bilowdo oo ay iska wadato hawsheeda daaweynta waliba waxa lagu daray oo cadaadiskii keenay in haweenka wixii markaasi ka dambeeyay loo ogolaado inay baran karaan caafimaadka inkastoo wali culeysyada jiray ay kamid ahayd in haweeneyda loo diro haweeney kale oo markaasi kontaroosha ama kormeerta aan idhaahdee sida ay u fulinayso hawlaheeda kala duwan Ignatiusna sidaas ayay ku gashay taariikhda haweeneydii u horeysay ee baratay cilmiga caafimaadka iyadoo oo waliba markaasi ku takhasustay cilmiga physicianka ama dhakhtarka guud iyo si gaar ah iyaduna ay u sii baratay xanuunada dumarka
ama cudurrada ku dhaca haweenka waa cudurrada loo yaqaano ama dhakhtarka sida gaarka ah gynecologist-ka aynu u naqaano tabeelooyin waaweyn iyo boorar waaweyn ayaa ku dhagsan dalka Talyaaniga iyo dalka Greek oo ay ka soo jeeday iyadoo magaceeduna si weyn dunida uu ugu faafay haweeneydaasi taariikhdaasi iyo waliba xogtaasi hore ma u maqashay aynu aqoon kala kororsanee nagu soo biir